دون lagu gaday $3,000 in $4,000 lagu qaado waa xaalad aan suurtagal lahayn dad ayaa mashaariic iyo lacag ka sameynaya xaaladda dad ay ku jiraan dad ayaa ka faa'iideysanaya dad ayaa dhaqaale ku raadinaya in ay gobolkan ka faa'iideystaan inta lagu jiro xaaladan adag isbaara caadi ah ayaa hawadii la dhigay dadkina way ku dhiban yihiin dad dhibkooda in dhaqaale laga dul raadiyo ee lagu dul ganacsada fursad loo arko waa xaalad aad u adag wax la aqbali karana ma ahan ayaamahan waxaad ka warqabteen in guud ahaan gayiga Soomaaliyeed ay maasheeyeen roobab mahigaan ah iyo daadad socda oo halis ah sida wada ogeenba goboladu way kala darnaayeen roobab mahigaan ah oo saameeyay guud ahaan dadka Soomaaliyeed mayi iyo magaalaba waxa jira magaalooyin badan oo roobabkani ay dhibaato u geysteen waxa jira magaalooyin roobabkii ay dul mareen waxa jira kuwa laga qaxay kuwa buundooyinkii ay ka go'een iyo dad badan oo Soomaaliyeed oo u rafaaday dad ku dhintay kuwa ku barakacay iyo kuwa ilaa waqtigan aanan haysan hooy iyo hoyaad dhar iyo agab iyo cunto midna aanan haysan gobolada Soomaaliya guud ahaan way ka wada dhacday waana xaalad musiibo ah oo dhammaan ku dhacday ummadda Soomaaliyeed waana musiibo qaran hase yeeshee dawladda Soomaaliyeed ma jirin wax gurmad ah oo la taaban karo oo arrinka ay ka geysatay gaar ahaan gobolka Gedo waxa ka dhacday xaalad aad u adag oo musiibo ah degmada Buurdhuuba waxa guud ahaan ka saramaray guryihii ka saramaray saqafkoodii daadadkii iyo roobabkii iyo biyaha webiga ayaa ka saramaray dadkeedina nafar kuma dhaxnoola degmada Baardheere sidoo kale dhibaatada way gaartay degmada Buurdhuuba Doolow iyo dhammaan sidoo kale Jubbooyinka ayaguna xaaladda way gaartay beledweyn oo sidoo kale webiga uu maro dhibaatada way gaadhay waxa jira xaalad aad u adag oo cakiran oo dadkii haysato maadaama dawladii aysan wax gurmad u sameyn waxa jira dad jaaliyadaha oo qurba joog ah oo sameeyay isku tashi in ayagu lacag aruuriyaan deetana dooma dadka ay ku kala gooshaan ama ay ku gudbaan waxa weeye in loo sameeyo ama loo gado dadka buundooyinkii uu raashinka iyo nolosha ay u soo mari lahayd way ka go'een oo buundo u dhisan ma jirto nolol ma haystaan agab ma haystaan waxay ku nool yihiin buuraha dushooda waxa jira dooma loo gaday oo dad qurba joog ay gadeen hase yeeshee doomihii xamar ayay ku xayiran yihiin oo waxa la yahay wax lagu qaado macnaha diyaarad lagu qaado ayaa dawladii federaalka xitaa laga leeyahay hal diyaarad ayaa waxa la yiri gobolka Gedo loo xiray diyaaradda ayaduna $40,000 ayay leedahay halkii safar ay doonayso inay gobolka u baxdo waxay doonaysaa inay ka sameyso wax ka badan $35,000 $40,000 halkii marka ah doon lagu gaday $3,000 in $40,000 lagu qaado wax suurtagal ma noqonaysa maya suurtagal ma ahan macquulna ma ahan hal diyaarad ba copyright loogu xiray gobolkii si ay ugu shaqeysato xaaladan iyo dhibaatadan dadka ay ku jiraan ayada ay kaga lacagaysato oo ganacsi looga sameeyo bal ila dhageyso xildhibaanadan ka hadlayso doomihii dadkii shacabka iyo jaaliyadaha ay gadeen in la geyn laayahay gobolka doomihii isku tashiga iyo bulshadu ay ku tala gashay oo ay soo aruuriyeen oo jaaliyaduhu gadeen in wax noo qaada aan weyno waa masiibo kale oo labaad oo tan dhacday ka daran in la yiraahdo hal diyaarad oo maanabooli ku haysto meesha oo la leeyahay halkii mar ay duulaysana $30,000 $40,000 hala keeno doon $3,000 lagu gaday aan gaarsiin weyno waa masiibo kale oo maaragtay dawladda xageeda ka timid xukuumadda markay isbedeshay kadib waxa jiray ciidamo laga daabuleeyay ama laga qaaday ama laga daadgureeyay gobolka Gedo dawladdu waxay keenaysay diyaarado isdaba joog ah maxaa ku dhacay diyaaradihii ayaga ah maanta xagee ayay jireen ma kaliya dawladdu waxay awoodi weyday in lacagta laga khafiifiyo ama diyaarado dadka kaliya doomaha loo saaro dadka shacabka gateen xaaladdu way adag tahay dadkuna sida way ka bixi doonaan dadka jaaliyadaha khayraalaha siiya ee u istaagay ee isku dayay inay wax qabtaan kaalintii dawladana ayagu ay buuxiyaan webiga Jubba iyo Shabeelle magaalooyinka ay maraan guud ahaan dhibaatada way saameysay waxay u baahan yihiin gurmad waxay u baahan yihiin garab istaag laakiin in lacag laga duldaliyo oo diyaarada qaas oo private ah loo sameeyo deetana mashaariic laga sameeyo lacag laga abuuro dadka xaaladda ay ku jiraan in laga taajiro la isku dayo waa xaalad aad u adag waa xaalad dhibaatadeeda leh waa xaalad xanuunkeeda leh doon lagu gaday $3,000 in $4,000 lagu qaado waa xaalad aan suurtagal lahayn dad ayaa mashaariic iyo lacag ka sameynaya xaaladda dad ay ku jiraan dad ayaa ka faa'iideysanaya dad ayaa dhaqaale ku raadinaya in ay gobolkan ka faa'iideystaan inta lagu jiro xaaladan adag waxaan mar labaad ugu baaqayaa dawladda federaalka Soomaaliya in xaaladani ay dib u eegto xaaladan laga cabaadayo ee dadku dhibaatada ku hayso xaaladda ka jirta baaritaan ay ku sameyso gudina ay u saarto ilaa hadda waxaynu ognahay in aysan jirin wax gudi ah oo loo saaray xaaladani waxaan ognahay in aysan jirin wax gurmad rasmi ah oo la taaban kara oo dawladdu ay sameysay taa beddelkeeda
ma jira gaari soo geli karo oo buundooyinkii way go'an yihiin xitaa baydhabo iyo xamar dhexdooda ayuusan baabuur mari karayn maadaama gaari uu baydhabo iyo xamar dhexdooda mari karayn meel kasta ama degmo kasta ka Soomaaliya kamid ahi waxa qasab ah in diyaarad wax lagu geeyo baabuur go'aanta tagi karaya ma jiro diyaaradihii hadii maanta la yiraahdo waa fursad baabuur baxaya ma jiro gobol walba hal diyaarad ha loo xiro oo waxa weeye ha ka shaqeysato waa xaalad aad u adag weey dad dhibkooda in dhaqaale laga dul raadiyo ee lagu dul ganacsada fursad loo arko waa xaalad aad u adag wax la aqbali karana ma ahan waxayna u baahan tahay dawladda ama ku wanaagsan in arrinka ay dib u eegto gobol walba diyaarad loo xiray oo diyaarad waxa weeye copyright loogu xiray hal diyaarad oo la yiri diyaaradda waxa iyada sheegata ka qaadato xaaladu way adag tahay suurtagal lama noqonayso in waxa weeye la gaarsiiyo caawimaad halka in gargaar la gaarsiiyo isbaara caadi ah ayaa hawadii la dhig dadkina way ku dhiban yihiin dhaxda hal la xirto hal isu gurmado hal isu gargaaro arrinkani wuu iska dhamaan doonaa insha Allah dadkanina waxay ku dambeyn doonaan guul iyo gobonimo hadii dawladda federaalka Soomaaliya ay guddi rasmi ah u dooran lahayd ay u magacaabi lahayd xaaladaha fatahaadaha iyo abaaraha iyo dhibaatada ka jirto hadii ay guddi u qaban lahayd mar hore xukuumadda oo beesha caalamku la hadli lahayd oo cid waliba ay wax keeni karta ay la hadli lahayd wax badan oo sidan ka duwan ayaa laga qaban lahaa roobabka iyo fatahaadaha iyo masiibada dhacday dawladdu ma keenin waxa iyadu keentay ma ahan laakiin kaalin bay leedahay waxay leedahay fududeyn waxay shacabka qabsadeen xitaa doomiye ay gateen inay u fududeyso dawladdu waxaan leeyahay dadka qurba joogta ah ee wax isku dardaray ee dadka walaalahood u gurmanayo wixii yarkay dadka ay u soo dhiibeen hal la gaarsiiyo xamar bay ku xayiran yihiin hal la gaarsiiyo ilmaada rayaalo oo dadkan waxa weeye hal loo gurmado oo dar ilaahay dadkan waxa loogu qabto yaana cid loo eegine Soomaalinimo iyo dar ilaahay hal isugu gurmado